السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام أصحاب يوتيوب channel ku xiran haddii macaamiisha oo kamid tahay fadlan subscribe saar. Maanta abkiya ka hadli rabaa hadda toos ayaa Play Store loo soo geliyay, toos ayaa Play Store uu soo degi kartaa. Linki halka hoos ay ku soo dhigaya ka soo degso, linki halka hoos ayaan ku soo dhigaya ka soo degso. Mid kale kii hore haduu ku jiri kaas ku meel gaar loo ahaa, hadda kan ayaa ka wanaagsan. kan hadaa ka sarfinays xataa lacagtaada hadaa ka sarfinays xataa kuma soo celcelinaa, laakiin kii hore oo ku soo celcelinaa, ma fahantay? Marka linkiisa halka hoose commenti ayaan soo dhigi doonaa. Telegram channel-keena ku soo bir, Telegram haddii aad leedahay Telegram channel-ka ku soo bir. Marka linki waa kana oo si toos ah Play Store ayaad ula soo degi kartaa, si toos ah Play Store ku soo degi kartaa. Halkaas linkiisa ku dhufinaysaa, linkiisa ku dhufinaysaa Play Store kaas si toos ku geenayo. waa kana Play Store si toos ah ku kan mujada. Marka saa soo degsatid waxaad taabanaysaa meesha ay qoran tahay install. Play Store qof walba sida wax loo soo degsanayo ka saamala tilmaam ma u baahnaba. Marka uu wareegana akaas aanu soo dego 78 meelaas marwada. waa kana uu soo dego. Marka saan ku soo dego waxaad taabanaysaa halkaas ay qoran tahay open, halkaas ay qoran tahay oo taabanaysaa open. kadib saan ku soo baxa waraqadan saan iska leedahay oo iska laabaysaa. Marka waa kana aabka fadlan haddii oo caawinaad oo cilad ama ay ku qabsato, numberkan ayaa si toos ah WhatsApp ula xiriiri kartaa. Mar walbana waa online, asiga ayaa u jooga inuu ku caawiyo. Numberkaas WhatsApp si toos ula xiriiri asaa u jooga inuu ku caawiyo. Markaas ka diiwaangelinaysid waxaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay sign up. Markaas ka diiwaangelinaysid waxaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay sign up. kadib halkan meesha magacaada gelinaysaa, halkan magacaada gelinaysaa. kadib meeshan oo last name magacaada aabaha ama magac kale oo naanaysa dalada xataa iska gelinaysaa. magaca rabta gashinaysaa. meeshan email-kaada gelinaysaa, email-kaada saas u gelinaysaa. email-ka marka saas u gelisid meeshan password-kaada gelinaysaa, ma fahantay? password-kaada gelinaysaa. marka password-ka saas u gelisid, password-kii korkaas gelisi ayaa meeshan hadana confirm dhamaystir password-kaada mar labaad ku noqday si password-kaada hadhowti oo ka lumin. mar labaad inta kuna number-kaada daarabtid password waa ka dhigi kartaa adi number-kaada. kadib marka sidaas password-ka u samaysid meeshan phone number iyo number-kaada gashinaysaa. halkaas waxaa gashinaysaa number-kaada ama Somtel ha ahaado ama Hormuud ha ahaado, number-ka rabtid ama Somnet ha ahaado, number-ka rabtid oo adiga haysatid ayaa gashinaysaa. wixii intaas ka dambeeya waxaad taabanaysaa sign up. wixii intaas ka dambeeya waxaad taabanaysaa sign up, meesha qoranta taabanaysaa sign up taabanaysaa. markaad taabatid waaka save aa leedahay, hadhowti si automatic adaa u gali kartid. hadda wixii ka dambeeyo waxaa kuu furmi akoonkaadii. hadda wixii ku dambeeyo waxaa kuu furmi akoonkaada. marka si aad hadda hal waxaan anog sarfaan tusaa. marka si aad exchange u bilaabto ama lacag aad ka sarfato waxaad taabanaysaa halkan my account ee qoranta mujada ku calaamadey meehaas my account xoo cadaan waa buluuga. my account marka saas uu dhufto saan ku soo baxayo intaan meel ku soo bixayso my payment my exchange. meeshan waxaa ku dhufinaysaa da serifka blaze start exchange meesha qoranta ku dhufinaysaa.
haddii lacag ka inaad sarfatid rabtid start exchange ku dhufaysaa. wixii intaas ka dambeeyo halkan lacagta kasoo diraysid ayaad gelinaysaa. halkan kore lacagta soo diraysid ayaad gelinaysaa. halkan ayaan ula jeedaa select lacagta haysatid. EVC Plus haysataa tusaale 1xbet aad rabtaa, EVC Plus haysataa Bitcoin aad rabtaa, saas camal waaye. meeshaan lacagta haysataa geshinaysaa. meeshaan iyadana select 2 waxaa gelinaysaa lacagta aad rabto in lagu soo diro 1xbet, saas camal ayaa yeelaysaa. markaa saas yeeshid waxaad taabanaysaa exchanger meesha ku qoran tahay, exchanger meesha ku qoran tahay taabanaysaa. exchanger meesha ku qoran tahay taabanaysaa. kadib haddii $1 ama $2 sana ugu sarfanaysaa. meeshana lacagta rabto aad ku qoraysaa $1, $2. 1xbet tusaale markaa sarfanaysa waxba lagaama jaranayo. $2 haddii sidaas dhaho 1xbet markaa sarfanaysa waxba lagaama jaranayo. $2 markaa saas dhaad kadib waxaad taabanaysaa next step ayaa taabanaysaa. kan yuu ku dhamaanan kan daqiiqada waaye oo socda waaye, marka yuu ku dhamaanan kaas. kadibna next step ayaa taabanaysaa. markaa next step taabatid meeshaan numberkaada la gelinaysaa. numberkaada ayaa gelinaysaa. halkan numberkaada kor oo ahaado meeshaan waxaa gelinaysaa u1xbet account akoonkaada oo 1xbet-ka ID-gaada gelinaysaa. 1xbet gelinaa ID-ga lacagta meesha lacagta lagu soo diri lahaa ayaad gelinaysaa. ID lacagta lagu soo diri lahaa ayaad gelinaysaa. marka 1xbet-ka saan ku soo baxa ID qof walba oo ka saa halkaas taabanaysaa. ID qof walba oo ka saa lacagta lagu soo diraayo. kadib meeshaan taabo my account. ID-gaada haddii mar walba qoro ku daalaysid waxaad taabanaysaa halkan my account ku qoran tahay taabanaysaa. ma jeedaa meeshaas my account ku qoran tahay. markaad taabatid aad shaashi 4 sent ay u jirto. kadib meeshaan withdraw ay qoran tahay taabanaysaa. macnaha ID-gaada soo koobi gareynay withdraw meesha ku qoran tahay. kadib intaas ka dambeeyo ID-gaada halkan waa ka koobi gareyn kartaa. adoo qorin ayaad halkan ka koobi gareyn kartaa. waa kana ID-gaada meeshaas ku soo qormaa. saas camal ku soo qormaa. ID-gaada saas camal ku soo qormaa. gacanta ku riixaysa cabaar haysa. kadibna meeshaas ay koobi u qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. meesha ma jeedaa oo koobi u qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. hadaa ka siis cabaar gacanta meesha ku weynaysaa. kadib koobi iyo waxaana ku soo baxay koobi aad taabanaysaa. marka wixii intaas ka dambeeyo app-ka ayaad galaysaa. app-ka markaas aan soo gasho ID-gaada ayaa bast ku leedahay. kadib wixii intaas ka dambeeyo waxaad taabanaysaa next. next ayaa taabanaysaa. kadibna numberkan ayaa lacagta ku diraysaa. kan waa hormuud camal waa lafta hormuud. haddaad rabtid kor inaad ka qorto mobilka yariska waa kusoo diri kartaa. inaad kor qortid mobilkaada yariska waad kusoo diri kartaa. kadib meeshaan bast iskii dhaha. kadib meeshaan lacagta qora. lacagta aad rabtid ayaad halkaas ku qoraysaa. xidig lacagta si loo diraa waa kaseebo inaan kuu sheego muhiim maahan. kaliya nambarka le iska hubi. kadib waxaad taabanaysaa simona dhaha. kadib okay taabani. kadib magaa lacagtan saan ugu dirtid. magaa lacagta saas sendi aa leedahay. kadib waa kaasa $2 waa dirtay. nambarkaasaana aa u dirtay. $2 nambarkaas ayaa u dirtay. wixii intaas ka dambeeyo meeshaan nambarka lacagta kasoo dirtay ayaad gelinaysaa. meeshaan waaye nambarka lacagta kasoo dirtay ayaad gelinaysaa. ewer an somnet ma ayaan hadda ka diri 6 8 3 no number humuda ka diri. nambarka halkan kasoo dirtay ayaad gelinaysaa. an somnet qoro ewer 6 8 3 nambarka lacagta kasoo dirtay waa halkaas gelinaysaa. haddii 1xbet withdraw aad sameynaysidna meeshaan waxaad gelinaysaa ID-ga lacagta kasoo dirtay iyo koodka ayaad gelinaysaa. wixii intaas ka dambeeyo waaba EVC Plus 1xbet adoo haystid EVC Plus saas ku helaysaaba. maxaan ku dhahay haddii 1xbet haystid EVC Plus rabtid meeshaan waxaad gelinaysaa ID-gaada kow iyo koodka in qof walba garanaa oo withdraw oo gelina. wixii intaas ka dambeeyo wuxuu taabanayaa
confirm lo taabana waa kana marka wixii intaas ka dambeeya operationka lacagtaada successful payment yaadi waa la helay 3 daqiiqo ilaa iyo 5 daqiiqo ayay ku soo gaaraysaa lacagta meeshan waxaad iska qoraysaa taankiis waxaad ku qoraysaa meeshaas wixii fikirkaada ay ku qoraysaa la waaye wixii fikirkaada la ku qoraysaa kadibna waxaad taabanaysaa add feedback meeshaas excellent good very good adila waxa ku qoraysid meeshaas uu qoraysaa wixii intaas ka dambeeyo lacagtaada hadii ku soo gaarto de kale waxaad taabanaysaa meeshan my account ku qoranta taabanaysaa ay la test exchanger ayaa taabanaysaa my exchanger ayaa taabanaysaa meeshan my exchanger ay ku qoranta lacagtii aan sarftay ayaa loola jeeda wixii intaas ka dambeeyo waa kana lacagta aad sarftay EVC plus to 1xbet kadib waxaad taabanaysaa halkan aad taabanaysaa numberkaas meeshii hadda ku hariiqmeeyay numberkaas aad taabanaysaa waa reference ID gaada marka waa kana whiten waa uu hubinaya lacagta inay gaarto inay kala hubina markii 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo soo reeto meeshan confirm mail ay soo qormay wax yar aan isla sugna markaas ina lagu soo diray in kale saa u waato halkan intaad soo jiidaysa darbiyana saas soo jiidaysa majida kadib waxaad taabanaysaa refresh meesha de confirm mail ku soo qoranta ama haday kale refresh aad taabanaysaa kadib waa kana waxa ku soo qormay confirm mail majida calaamada saxda ah loo saar taas macnaheedu waxa waaye lacagtaada waa lagu diray sidaas ayaa ku ogaanaysaa meeshan aad daaridna saaxiibadaada linkiga ayaad u share gareynaysaa ayakana de linkiga iska soo diiwaan geliyaan wax baad ku leedahay hadii linkiga iska soo diiwaan geliyaan wax baad ku leedahay commission camal ku soo gaarayo hadii linkiga iska soo diiwaan geliyaan oo lacag ka sarftaan adina commission ayaa ku soo gaarayo lacagta u yar ee commission la bixi karna waa $30 marka waa kana akoonka dhan dhaqaaqaya dhan sana uu soo kartaa iyo dashboardka tagaysa si toos ayaa 1xbet ka lagu diraya si toos ayaa 1xbet lagu diraya hadda waxaan fiirinaynaa 1xbet keena hadii lacagta ay soo gaartay ama hadii kale hadii lacagta soo gaartay ama hadii kale fiirinaynaa 1xbet galina galaala uu noqonaynaa halkan kadib refresh adina meeshan ay waa kana mujida $2 way soo gaartay $2 aabe $2 waa kaas way soo gaartay $2 way soo gaartay marka qaabkaas ayaa iska diiwaan geliyaa qaabkaas ayaana lacag loogu sarftaa hadii tusaale waxa wada oo akoonkaada ka baxdeed loo dhaadid akoonkaada iska diiwaan gelisi oo tusaale meeshan ku soo qoro aabe akoonkaada iska diiwaan gelisi oo tusaale meeshan ku soo qoro waxaad taabanaysaa login markaad taabatid hadii iska diiwaan geliso ayaa halkan emailkaada iska diiwaan gelisi iyo passwordkaadi ayaad gashinaysaa halkan emailkaada iska diiwaan gelisi iyo passwordkaadi ayaad gashinaysaa kadibna akoonkaada si toos ah ayaad u galaysaa marka waxaan rajaynayaa inaa wada fahanteen sida wax loogu sarfto sida la iska diiwaan geliyo iyo sida loo soo degsado halka hoose